السلام عليكم. فلسطين وودن ku yaala bariga dhexe ee qaaradda Aasiya. Falastiin waxay xuduud la leedahay wadamada Masar, Urdun, Suuriya iyo Lubnaan. Baaxadda dhul ahaan ay ku fadhido Falastiin waa 26,990 kiiloomitir oo iskuweer ah. Markii hore dhulka Falastiin waxa deganaan jiray Carab Falastiiniyiin ah iyo Yuhuud tiro yar. Waxaa lagu qiyaasaa in Falastiiniyiinta ay ka badan yihiin 8 milyan marka loo eego tirakoobkii 1997kii. Qaxoontiga Falastiiniyiintu waxay kala degan yihiin wadamada Urdun oo ay ku nool yihiin 3 milyan, Lubnaan oo ay ku nool yihiin 400,000 oo qof, iyo wadamada kale ee Carabta oo ay ku kala nool yihiin in ka badan 800,000 oo qof oo Falastiiniyiin ah. sidoo kale Falastiiniyiintu waxay kala degan yihiin qaaradaha adduunka sida Yurub, Ameerika, Aasiya. Falastiiniyiinta waxaa lagu qiyaasaa 3 qof bayna hal qof uu ku jiro kaalinka qaxoontiga ee caalamka. Dadka reer Falastiin haddii ay hal meel wada degaan, Yuhuudda waxay ku keeni kartaa warwar aad u badan iyo cabsi. Taariikhda Falastiin waxay in badan ku xusan tahay qoraalada diiniga ah ee Yuhuudda, Masiixiga iyo Islaamka. Falastiin waa dhulkii nebiyada iyo rasuusha ay ka soo bixi jireen, waana qibladii Islaamka ee ugu horeysay. Falastiin waxaa ilaa hadda ka dhisan dhismayaal taariikhi aad u dheer leh oo cadeynaya taariikhda soo jireenka ah ee Falastiin ay la leedahay. Falastiin waxay leedahay taariikh soo jireen ah oo soo taxnayd xilliyo aad u fog. Falastiin waa dhulka ay ku noolaayeen shacabkii loo yaqaanay Kancaaniyiintu. Magaca Falastiin waxa bixiyay Griigii hore, markaas oo ay magaca Falastiin u bixiyeen dhulkii xeebaha ee wadanka Falastiin. Xilliyada qaar magaca Falastiin waxa loogu yeeri jiray dhulkii Falastiiniyiinta iyo wadanka Urdun oo wada socda. Caasimadda dalka Falastiin waa magaalada Qasa oo uu ku yaalo maska barakaysan ee Qudus. Magaalada Qasa waxay leedahay taariikh aad u dheer, taasoo soo taxnayd in ka badan 4,000 oo sannadood. Qasa waxa xukumay dadyo badan, waana la burburiyay, dib ayaana loo dhisay, waxaana degay dadyo badan iyo boqortooyooyin badan. Kancaaniyiinta oo ahaa Masaaridii qadiimka ahayd ayaa gacanta ku hayay Falastiin 350 sano ka hor intaan la furanin Falastiin, taasoo ka dhigtay Falastiin wadamadii ugu waaweynaa qarnigii 12aad. Falastiin waxay Israa'iil qabsatay sanadkii 1967 kadib markii ay guuldareysteen Carabtu kuna guuldareysteen dagaalkii 6 cisho ee ay la galeen Yuhuudda. Dagaalkaas oo guuldaradiisa lagu sababeeyo in aanay wadamada Carabtu ka midaysnayn fikir ahaan. qaybo badan oo ka mid ah wadanka Falastiin ilaa hadda waxa gacanta ku haya Yuhuudda, taasoo loo sababaynayo kala daadsanaanta Carabta iyo wadamada Islaamka oo aan iska saarin sidii ay u dhicin lahaayeen wadanka Falastiin iyo magaalada Qasa mas'uuliyad. qarnigii 20aad Qasa waxa ka dhacay 2 dhulgariir oo aad u burburiyay, waxaanay kala dhaceen sanadadii 1903 ilaa 1914. wadanka Falastiin waa goob istiraatiiji ah oo u dhaxaysa Masar iyo Kancaan. Magaalada Qasa waxay meel ilbaxnimo leh iyo falsafad. Qasa sidoo kale waa xarun ganacsi oo wadamo badan ka dhaxaysa. Xamaas waa urur Islaami oo ka soo horjeeda qabsashada dhulka Falastiin, waxaana aaminsan yihiin dib u xoreynta dhulka Falastiin. Ururka Xamaas waxa la aasaasay 14 Diseembar 1987. Aasaasaha ururka Xamaas waa Sheekh Axmed Yaasiin. Kuwo kale oo badan oo ka mid ah dadkii ururka aasaasay ayaa la sheegaa. ururka waxay xarun u dhexe ku leeyahay magaalada Qasa. Hogaamiyaha ururka waa Yaxya Sinwaar iyo Ismaaciil Haniya oo hadda gacanta ku haya ururka Xamaas.
intaa waxaan ku soo gabagabeynaynaa taariikhdii dahabiga ahayd ee waddanka Falastiin iyo magaalada Gaza ee uu ku yaalla masjidka barakaysan ee Qudus.